warshad baabuurta xamuulka lagu farsameeyo iyo guryaha casriga ah ee loo yaqaano real estate ayaa laga furay magaalada Jigjiga iyadoo si wada jir ah xadhiga looga jaray wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha dalka mudane Xasan Maxamed wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Axmed Rashiid Cabdille wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdixakiin Sheekh Xasan duqa maamulka magaalada Jigjiga injineer Shaafi Axmed mas'uuliyiin kale culimowdiin odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadan lagu furayay warshada baabuurta ee Saahid iyo guryaha casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ka hadlay daafurka shirkadahani ayaa bogaadiyay maalgashiga ballaaran ee ay deegaanka ka sameeyeen mulkiilayaasha shirkadahani waxaan bogaadinayaa labada Cabdiraxmaan oo laba shirkadood oo wax ku ool ah sameeyay kana fuliyay magaalada laba mashruuc aad iyo aad muhiim u ah waa shirkadda koobaad ee Saahid MI Engineering oo maanta aan daah furayno shirkadaas oo sameynaysa ama isu geynaysa gawaarida qaybo kamid ah gawaaridana halkan ku sameynaysa qaybaha kale la isku xirxiraysa oo sidii uu sheegay soo saaraysa gawaari ka badan ku dhow 100 bishii waxaan leeyahay waa talaabo hore loo qaaday iyo waxtar ballaaran oo ku soo kordhay deegaanka gaar ahaan dhanka warshadeynta waxa farxada in maalgashinta leeg oo 1.2 bilyan ah ay galiyeen dhulkoodii iyagoo shaqo u abuuray sida la sheegay dad ka badan 220 qof waxa kale oo hawl weyn ah oo ay tahay in la xuso in shirkadda kale ee Jigjiga Royal Real Estate ilaa 220 guri dhismahoodii qaar uu dhamaaday qaar uu socdo ka fulinaysa magaalada oo iyada lafteedu lacag 500 milyan ka badan lagu bilaabay shaqana oo abuuraysa dhalinyaro badan oo ilaa iyo 150 ku dhadhow aad baan u bogaadinaa labada Cabdiraxmaan inay dhiiranaanta sameeyeen oo dhulkooda ay maal gashadeen bogaadinta kadib waxaan rabaa inaan xuso in aan xukuumad ahaan soo dhaweynay in maalgashi lagu sameeyo deegaanka intii hadda isbedel ku dhacay waxaa xusid mudan in la sameeyay 230 warshadood 233 warshadood ee laga hirgeliyay deegaanka isbedel kadib 23 waa warshado waaweyn marka tani waxay noqonaysaa mid kamid ah warshadaha waaweyn ee deegaanka laga hirgeliyay 70 warshadoodna waa kuwa dhexe ilaa 140 warshadaha yaryar way waa la hirgeliyay marka 233 hadda la hirgeliyay inta isbedel ku dhacay lagu daro 85 hore waxa la oran karaa warshadeyntu iyo in laga hirgeliyo mashaariic warshadeynta way soo badanayaan laakiin kama joogan wadanku wali uu diin yahay fursado badan ayaa ka banaan fursadahaas waxaan diyaar u nahay xukuumad ahaan inaan ka caawinno dadka maalgashiga raba inay sameeyaan dhankiisa wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha dalka mudane Xasan Maxamed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay anigoo ku hadlaya magaca dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda warshadaha iyo magacayga waxaan hambaliyo leeyahay shirkadahan cusub ee waaweyn ee maanta la furay ee guud ahaan Ethiopia marka la fiiriyo waxay noqonaysaa warshada ugu weyn ee saddexaad dawladda deegaankana waxay noqonaysaa warshadii koobaad ee ugu weyn hambaliyo ayaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo u noqonaysa midaal iyo dhiirigelin ganacsatada Soomaaliyeed ama dibadda joogan ama guud ha joogaan runtii markaan maanta arkay hadda korna waan soo booqday wax weyn baa noo kordhay waxa jirtay muddo 2 sano ka hor inaan wafti ka kaxaynay Ethiopia oo geynay Vietnam iyo India taas oo ku soo aragnay warshadahan oo kale marka maanta wadamadii horumaray ee Hindiya iyo Vietnam warshadihii aan ku soo aragnay maanta inaan Jigjiga ku aragno farxad weyn bay noo tahay dadka Soomaaliyeedna sharaf bay u tahay warshadan lacag badan baa lagu maalgeliyay runtii shaqaale badan oo Soomaaliyeed shaqo abuur bay samaysay technology transfer bay samaysay
waxaan rajaynaynaa mar dhow inay export samayso oo u dhoofiso waddanada dariska gaar ahaan Djibouti Soomaaliya iyo Somaliland intaba inta marka halka ka gudbo waxaa jira barnaamij ka socda guud ahaan Ethiopia oo la yiraahdo Ethiopia Tamert Ethiopia wax soo saarto ayuu ku noqonayaa Soomaaliga laakiin xagga Ingiriiska marka loo qaado waxay noqonaysaa made in Ethiopia taas aad fahmaysaa mar mareynaya marka maanta waxaan joognaa made in Jigjiga made in deegaanka Soomaalida sharaf weyn bay noo tahay in dawlad deegaanka maanta Soomaalida inuu wax weyn soo saaro waxaan aad ugu mahad celinayaa oo nagu dhiirigeliyay inaan hantidanada sida u badan aan halka ku aamino madaxda wadanka oo ugu horeeya ra'iisul wasaaruhu iyo madaxweyne Mustafa oo xaqiiqatan dadaal dheer u galay inaan dhulkan aan real estate ka bilowno dhiirigelin iyo garab istaag badanna noo muujiyay ilaa haddana nala garab taagan iyo madaxda kale ee deegaanka oo iyaguna dadkooda si sharaf leh ugu adeega iyo hagarlaana haddaan ka warramo mashruucu gebigiis waa mashruuc deegaan ah waxaan ka sameynay guryo markii hore qayb baan dhisnay dadkii baahidoodan ku salaynay qaybo kale aan ku darnay qayb saddexaad baan haddana ku darnay ilaa hadda xataa waxaan diyaar u nahay dadka inaan design-ka xoga bedbedelno oo qofku sida uu isagu rabo aan markaa aan ugu diyaarino waxaan kaloo u diyaarinay mashruuca inuu yeesho facility-ga looga baahan yahay deegaan oo halkan aynan magaalada Jigjiga aynan waxba uga baahanin sida iskuulkii baan u sameynay iskuul international aan u sameynay waxaan u sameynay masjid aad u weyn oo aad u qurux badan baan u wadnaa garoomo ciyaalku ay ku ciyaaraan iyo dadka waaweyn baan u sameynay suuq supermarket mall yar baan u wadnaa iyadana insha Allah taala aan sameeynaa warshada lagu farsameeyay baabuurta xamuulka ah ee Saahid oo deegaanka ka howlgasha muddo sanad ah ayaa lagu farsameeyay baabuur dhan 370 gaari oo nooca xamuulka qaada ah dhinaca kalena guryaha casriga ah ee la gabagabeeyay ayaa gaadhaya 72 guri iyadoo qorshuhu yahay in la dhiso 220 guri sida uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Saahid oo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadahani labada shirkadood haddaan faahfaahin ka bixiyo tan engineering aan ku bilaabaya sanadii barbi hadda shaqaynaysaa 220 shaqaale ah oo baartaydio isugu jira ayaa ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa in soo socdo inay 500 ka badan gaari doonaan production badan baan sameynaa booydihii xamuulka ahaa baabuurtii kaargoogii kuwii dhaadheeraa booydihii dhulka la gelinayay engineering sida buundooyinka oo kale ah waxay kasta oo engineering u baahan ama bir oo dhan ka samaysan baan sameynaa kow baan ka bilaabnaa ilaa aan ku dhamaystirayna gaariga waxaan rajaynaynaa hadda 6 bilood kadib baabuurta laftooda inaan ku sameynaa rabnaa 6 bilood kadib hadda waan wadnaa hangarkii baabuurta lagu sameeyay inaanu soo motorka bas soo dejisanaan rabnaa isaga kana insha Allah waan ka bixi doonaa inaan motorka lift sameysano dadaal aan sameyno anaga dawladdu umay ku xiran tahay isaga insha Allah taala waan sameyn doonaa real estate kana 220 guri baan ugu tala galay ilaa imika 72 hadda dhamaystiray sanadkana waan ku dhamaystiraynaa guryaha inta noo dhiman insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaanu total marka la sugeeyo dad 500 ka badan baan shaqo abuur sameynay canshuur badan baan sanadkii bixinaa 1.2 bilyan ka badan oo dawladda soo hiina waxaan farsameynay ilaa 370 gaari baan hadda sameynay